horta wuxuu bilaabmay waqtigii 70-meeyadii waxaa jirtay waagaa iyada ahayd laba quwadood oo aad loolan adag ugu dhaxeeyay waa Soomaaliya iyo dowladda diriska ah Itoobiya waagaasna waxaa kala hogaaminayay laba nin oo generaal military ah ilaahay oo naxariistay jaalisiyaad iyo Mengistu ayaa kala hogaaminayeen wuxuu ku bilaabmay marka labada dowladeed Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa dhacday in ilan dowlad walba markay tahay military waxay iska ilaalisaa wax walba oo pressure ama cadaadis ku keeni kara haddii ay noqon lahayd kuwa gudaha ama pressure oo khaarijka ama dibadda ka yimaada sida Soomaaliya gudaheedana waxaa xoogo buuqa lagu kiciyay oo in jabhada iyo in rag siyaasiyiin lagu kiciyay iyagoo marka ayada ah la tusaayo dulduleelada dowladda bariga jirtay yani nin walba wuxuu isku dayaa in awoodda markaa jirtay inuu burburiyo sidoo kalena inaga laftigeena ama siyaada laftigiisa wuxuu markaa ayada sidaas limid ah ayuu asagana ilaa qaniintiya ka fujisay ayuu ugu beeray ogxaan ama qumbalada ama axzaab ama jabhada ka dagaalama dalkaasi Itoobiya maadaama labada dowladood jaar ay yihiin waxa isku haystana waxa kale oo dheeriya oo meesha aan ka mareen in la isku haysto dhul iyo xuduudaha iyo in la isku haysto laftikeeda meel badan oo xitaa kheyraad laga helay oo dowladda Soomaaliya ay leedahay dowladda kalena ay leedahay ana gacanta ku hay oo ka mid tahay ceelkii laga helay Shalaabo oo 77kii dagaalka sida rasmiga ugu bilaabmay intaas yani waa markii si loo fiiriyo dhanka arrimaha kaga tageen dhanka iyo gumeystaa dhankii gumeystaa ay kagteen ta ayada markii loogu dagaalamay ceelashaas ama yani siyaasad ahaan si uu soo qabtay dowlad walba waxay tiri bal xaniyahaadii awoodaada isticmaalo awood muuqata oo khaarij ahna oo fargelin rasmi ku sameey dal walbana ama dad walbana ayaga si isugu dhici lahaa falkeed hala galo waxaa dhacday marka anaga Soomaaliya ayaan inta badan priority ama mudnaanta koobaad siinayna in la sameeyo jabhado fara badan oo ilaa iyo 98 inay hayaan rajaynaya oo SNM ka mid ahayd USC ka mid ahayd SFD ka mid ahayd way tir badnaayeen intaas waxa loo gol lahayn waxay ahayd in xukuumadii ama kaliistariskii militariga lagu wiiqa ama awoodiisa lagu yareeyo si aanu interfere ama fargelin ugu sameynin waddanka ay ishayaan